munaafiqa waxa la yidhi calaamadu leeyahay aayatu lmunaafiqi halaath nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam munaafiqa saddex calaamaa lagu gartaa munaafiqa qalbigiisa lama arkayo ilaahay unbaa og subxaana wa tacaala waxa ku jira laakiin afcaashiisa laga qiimayn karaa sidaa ogeed buu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam munaafaqaba aayadda lagu gartaa waa saddex idaa xadatha kadab hadduu warramo baa la yidhi waa beenaale been buu sheegaa xadiidkiisu ninka kan warkiisu sheekadiisa beeni kama madhna waidaa wacada akhlaf hadduu ballan qaado ama uu waxyabaho yidhaha waxaasaan yeelaya ama waxaas haynoo ahaato wixii ballanana wuu buriyaa buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waidaa tumina khaan haddii la aamino na waxbuu khiyaameeya saddex khaslo ama saddex shay oo sifaadka liita ah buu nabigu tilmaamay sifaadka liita waxaa ka mid ah inuu qofku been sheego beentu horta beenaalu waa fulay marka koowaad waayo waa qof aan xaqiiqada waajihi karin beenaalu waa qof raba xaqiiqadu siday tahay inaanu waajihin ee inuu si waaqaca khilaafsan u sheego idan waxa dhaca calaamada koowaad ee beenaala lagu yaqaan waxa weeyaan waa qof fulayo aan xaqiiqada waajihi karin xaqiiqada sideeda uma sheegi karo qofkuna kuma haboona fulanimadu waa waaqaco uu ka ban sheegayo nabigu calayhi salaatu wasalaam iimaankii markaa wuxuu calaamad uga nifaaqi waxa calaamad looga dhigay inuu beenaalayo bal quraanka ilaahay muxuu ku tilmaamaya inma yaftari alkadhib alladina la yu'minun billahi inma yaftari alkadhib beenta wuxuu baa abuuraba la yiri kuwa aan iimaanka lahayn idan qofku inuu been sheega waxay doontaa ka qadhaadaato qofka muslimka waxa lagu yaqaan inuu run sheego inuu xaqaa'iqda sidooda u tilmaamo taasa dadnimadiisu ay ku jirtaa qofnimadiisu ay ku jirtaa raganimadiisu ay ku jirtaa shajaacadiisu iyo geesinimadu ay ku jirtaa yani dadka ducafada waxa lagu yaqaanaa inay isku dayaan xaqiiqada inay ka baxsadaan hatta in badan kuwan qaad iyo khamro iyo waxa kani waxay jecel yihiin inay noloshaba is dhaafiyaan yani xaqaa'iqda noloshu diiday qofkan inuu waajaho saasi daraadeed wuxuu doonayaa mahrab meel uu cararo ولذلك صخرتنا iyo waxaan la sameeyo dhan inta ugu badan la qaar waxa ku kalifta inaanu xaqiiqada waajihina awgeed